eygii hunguriga weynaa. Beri hore waxaa jiray ey la odhan jiray Mooge. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu go'aansaday inuu socdaalo. Intii uu warwareegayay waxa uu helay laf. Mooge waxa uu eegay hareerihiisa, laakiin ma ay jirin cid sheegata lafta. Sidaas darteed si dhaqso ah ayaa uu laftii u soo qaatay, waana uu cararay ka hor intii aanay cidi arag isaga. Muddo markii uu cararay, Mooge waxa uu sugi kari waayay inuu cuno laftii. Waxa uu bilaabay inuu daydayo meel uu tago oo degan, oo aanay cidi ka hadlayn, si aanu laftiisa cidna ula wadaagin. Markaa Mooge waxa uu soo gaadhay webi leh biriish loox ah, waxaana uu bilaabay inuu ka soo gudbo. Intii uu ka soo gudbayay biriishka, waxa uu hoos u eegay webiga, waxaana uu biyaha ka dhex arkay humaagiisa warkiisa. Mooge waxa uu khalad u qaatay humaagiisii biyaha ka muuqday, oo waxa uu mooday inuu ey kale oo afka ku sita laf uu ku jiro. Eygii doqonka ahaa ayaa aad u hungurooday. Mooge waxa uu damcay eyga kale laftiisa, markaas si uu u weeraro eyga kale, waxa uu ku ciyay humaagiisii. Hase yeeshee isla markii uu afka kala qaaday si uu u ciyo, laftii uu afka ku hayay ayaa biyaha webiga kaga dhacday. Mooge wuu cadhooday markii uu arkay in ay laftii ka luntay. Isagoo isku dayay in uu boobo wax aanu isagu lahayn, eygii hunguriga weynaa wuxuu lumiyey wixii keli ahaa ee uu haystay. Wax badso, wax beel bay leedahay. Tukihii haraadanaa. Nabaday carruurey. Ku soo dhawaada channelkayga. Maanta aynu daawano sheeko cusub. Beri hore waxaa jiray tuke ku noolaan jiray kaynta. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu tukahani in badan soconayay, ka bacdina haraad buu kax noqday. Markaasuu meel istaagay, kuna warwareegay meeshii isagoo biyo ka raadinaya, laakiin waxba kamuu helin. Tukihii waxa uu haraadkii awgii dareemay daal badan, laakiin rajadiisii muu lumin, waxaana uu kayntii oo dhan ka raadiyey biyo. Intii uu duulduulayay ee uu biyaha raadinayay, waxa uu helay guri. Isagoo isleh guriga waxaa yaala biyo, waxa uu tegay oo dul fadhiistay gurigii dushiisii. Waxa uu arkay dheri dhex yaala guriga. Waxa uu markiiba u soo duulay xaggii dheriga, waxaana uu ku dhex arkay gurigii, laakiin waxa uu arkaa in biyo aad u yari ku jiraan dheriga. Waxa uu aad ugu farxay in uu arko biyo, laakiin biyuhu gunta ayay joogeen, mana uu awoodayn in uu gaadho biyaha. In badan ayuu fikiray, isla markiibana waxa uu helay fikrad. Haddii aan dhagaxaan qururux ah ku guro dheriga, waxa laga yaabaa in biyuhu kor u soo kacaan, markaa waan cabbi karaa. Tukihii ayaa ku fikiray. Isla markii uu sidaa ku fikiray, waxa uu bilaabay inuu raadiyo dhagaxaan qururux ah. Waxa uu arkay dhagaxaantii oo meel dhow taala. Waxa uu ag tagay dhagaxaantii qururuxa ahaa, waxaana uu bilaabay inuu dhagaxaanta afkiisa marba mid ku soo qaado. Waxa uu dib ugu soo duulay dherigii, waxaana uu ku dhex tuuray dherigii. Biyihii ayaa in yar kor u soo kacay, laakiin weli muu awoodayn inuu gaadho biyaha. Rajadiisii muu lumin, ee marba xabad dhagax ayaa uu soo qaaday oo ka buuxinayay dherigii. Kadib waqti dheer oo uu dhagaxaantii qururuxa ku ridayay, biyihii ayaa kor u soo kacay. Tukihiina waxa uu dareemay farxad badan, waxaana uu cabbay biyihii ilaa calooshii uu ka buuxiyey. Sidoo kale waxa uu u yeeray dhammaan saaxiibadiisii ay biyaha u cabbaan. Shimbiro badan ayaa yimi, biyihii ayay cabbeen, waxayna u mahadnaqeen tukihii, kadibna way duuleen. Bal carruuray eega tukahan fariidka ah ee caqliga badan ee ku guulaystay wixii uu doonayay. Adiga qudhaadu waa inaad xigmadaada si fiican u isticmaashaa si aad ugu guulaysato inaad hesho waxaad doonayso. Sheekada saddexdii doofaar ee yaryaraa. Beri hore waxaa jiray hooyo weyn oo doofaarad ah oo lahayd 3 doofaar oo yaryar, manay haysan cunto ku filan si ay u quudiso.
markii ay si fiican u koreen, waxay u dirtay dibadda si ay adduunka uga raadsadaan nasiibkooda. Doofaarkii koowaad waxa uu ahaa mid caajis badan. hadda uma baahni in aan intaas oo dhan u socdo ilaa warshadda labanka lagu sameeyo. taa beddelkeeda waxaan qaban wax aad u yaroo shaqo ah. intaa kadibna gelinkayga dambe oo dhan waan iska nasan. Haba yaraatee muu doonayn inuu shaqeeyo, sidaas darteed wuxuu gurigiisii ka dhistay caws. Doofaarkii labaad waxa uu qabtay waxoogaa shaqo ka yara adag, laakiin sidoo kale isaguna waxa uu ahaa iska caajis. hadda uma baahni in aan intaas oo dhan u socdo ilaa warshadda labanka. uluhu way ka xoog badan yihiin cawska. waxaan u malaynayaa in ay iyagu shaqada qaban doonaan, laakiin si kastaba ha ahaatee aad baan u daalanahay hadda. taa beddelkeeda waxaan qaba shaqo aad u yar. intaa kadibna gelinkayga dambe oo dhan waan iska nasan. Wuxuuna ka dhisay gurigiisii ulo. Dabadeedna waxay bilaabeen heeso iyo qoobka ciyaar, waanay iska boodboodeen oo ciyaareen maalinta inta ka hadhay oo dhan. Doofaarkii saddexaad waxa uu shaqeeyey maalintii oo dhan, oo waxa uu gurigiisii ka dhisay leban. waxa uu ahaa guri adag oo dhammaystiran oo leh meesha guriga lagu kulayliyo iyo meesha qiiqa wax lagu kariyo ka baxo. wuxuu u muuqday mid iska celin karaya dabaylaha ugu xooggani haddii ay dhacaan. maalintii xigtay, yey ayaa doonay inuu ka tallaabo dariiqii yaraa ee ahaa meesha ay saddexda doofaar ee yaryar raadkoodu ku yaalay. wuxuu ugu horrayntii arkay doofaarkii koowaad gurigiisii cawska ahaa, waxaana uu sanka la raacay waxa gudihiisa ku jira. doofaar, wuu qayliyey. doofaarkaa yari wuxuu ii noqon doonaa casho macaan oon caawa ku casheeyo. intaa kadib waxa uu garaacay albaabkii, waxaanuu ku qayliyey, doofaarka yarow, doofaarka yarow, iga fur aan soo galee, iga fur aan soo galee. maya ma dhici karto. xaqiiqatan waa bar kuma taal. dabadeed yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigaagana dhulkaan la simi. markaa wuu afuufay oo afuufay, gurigiina dabayshuu raaciyey. yeygii afkiisii ayuu aad u kala waaxay, bahal qaniiniyo ahna xoog buu ugu qabtay hoos. laakiin doofaarkii yaraa ee koowaad wuu ka baxsaday yeygii, wuxuuna intii karaankiisa ahayd uga cararay si uu isugu qariyo guriga doofaarkii yaraa ee labaad. yeygii wuu ka daba tegey isagoo eryaday suqduudkii yaraa ee gurigii ulaha ka samaysnaa. wuxuu uriyey doofaarada gudaha ku jira. mar kalena afkiisii ayaa bilaabay inuu dhareeriyo, isaga oo ka fikiray cashada macaan ee ay u noqon doonaan. dabadeed albaabkii ayuu garaacay oo wuxuu yidhi, doofaarada yaryarow, doofaarada yaryarow, iga fura aan soo galee, iga fura aan soo galee. maya ma dhici karto. xaqiiqatan waa bar kuma taal. intaa kadib yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigiinana dhulkaan la simi. markaa wuu iskala xayday oo afuufay, gurigiina dhulka la simay. waxaana labadii doofaar ee yaryaraa isa soo hor tubeen yeygii cabsida lahaa. yeygii wuxuu isku dayey in uu labada doofaar isku mar qabto, laakiin wuxuu ahaa mid hunguri weyni qaaday. daamankiisii waaweynaana waxba may qaban, wuxuuse noqday mid hawada qaniina. labadii doofaar ee yaryaraana cagahay wax ka dayeen, waxaanay miciinsadeen qoobabkoodu intii ay kari karayeen. yeygii wuxuu eryaday doofaaradii suqduudkii yaraa, waxaanay kaga baxsadeen dirqi iyo tuxun. laakiin labadoodiiba waxay daf yidhaahdeen aqalkii lebanka ahaa. isla markiiba waxay qab ka soo siiyeen albaabkii ka hor intii aanu qaban yeygii. waxay saddexdii doofaar ee yaryaraa isku urursadeen gurigii, iyagoo la gariiraya baqasho ay ka baqanayeen yeyga dibadda taagan. yeygu maalintaas oo dhan waxba muu cunin,
markaa wuxuu aad uga shaqaysiiyey ama teedkiisii sidii uu u eryanayay doofaarada yaryar. iminka oo uu urin karo saddexdooda ku jira gudaha dhammaantood, waxa uu ogaa inay dhinaca kale ee labanka gidaarada ay ku sugayso qado wacan oo uu ku xafladayn karo. dabadeedna yeygii wuxuu ku garaacay baabacooyinkiisii albaabka, wuxuuna yidhi, doofaarada yaryarow, doofaarada yaryarow, iga fura aan soo gale, iga fura aan soo gale. maya ma dhici karto, xaqiiqatan waa barkumataal. intaa kadib yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigiinana dhulkaan la simi. hagaag, waa uu afuufay oo afuufay, wuu afuufay oo afuufay, haddana wuu afuufay, afuufay oo afuufay, laakiin waa uu awoodi waayey inuu guriga dumiyo. ugu dambayntii neeftii ayaa ka dhammaatay. ugu dambaystiina wuxuu yidhi, ma awoodo inaan intaa in ka badan afuufo. markii uu arkay inaanu awoodayn afuufintiisii oo dhan in aanu guriga dumin karin, yeygii run ahaantii aad ayuu u xanaaqay. wuxuu ku dhawaaqay oo yidhi, waxaan ka soo geli doonaa meesha qiiqu ka baxo, waxaanan idinku dhex cuni doonaa gurigiinna dhexdiisa. markii ay arkeen saddexdii doofaar ee yaryaraa waxa uu samayn doono, waxay ka soo laadlaadiyeen meeshii xaabada dabka dheri ay biyo ka buuxaan, waxaanay shideen dab olol badan leh. markii ay arkeen in uu soo socdo yeygii, waxa ay daboolkii ka qaadeen dherigii karayay. yeygiina wuxuu ku dhacay si toos ah biyihii karkarayay. doofaarkii yaraa ayaa si dhaqso ah ugu xidhay daboolka. taasina waxay ahayd dhammaadka yeygii weynaa ee xumaa.